ciyaartooyga gobolka Awdal iyo Selel labadaba Awdal haddaan ku horeeyo Awdal waxay haystaa ciyaartooygii ugu tayada badnaa ee ugu qaalisnaa waxayna haystaan tababare markiisii hore koobka la soo qaadayna ahaa kabtankii kooxda koobka soo qaaday ciyaartooygana aqoon u leh aad iyo aad Muxyidiin Diiriye Ducaale aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya iyo isaga tababare ku-xigeenkiisa Sadiiq niman ciyaartooyga tashkiiladda ay shalay ku soo galeen waxaan u arkayaa tashkiiladdii ugu qaalisnayd inay shalay ku soo galeen lamaan doonayn taa shalay oo kale waxaan doonayay inay Hargeysa la sugaan iyo hawdiye baan doonayay tan noocaas oo kala waayo ciyaartooyga ay la ciyaarayeen aad iyo aad bay u adkaayeen asay ahaatee 3 gool bay ku hormareen 9kii waxa la socdaa gobolka Awdal oo u horseeday laba nin oo kale qaalina meesha way ku jiraan culusay baa ku jira waa ciyaartooy aan isleeyahay koobka aan haysanay 14 gobol doonayaan 13 gobol kala rabaan in ay naga boobaan niman difaacan karaya ayaanu arkaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya halka ka sii hayaan leeyahay Selel arniyo inkastoo aan jecelayn deynayna la group noqdaan Selelna way naga soo baxeen waxaan noqonay la famaroodi iyaga la isku jabiyaadi waxaan safilayaa markaan saadaal aragtaantayda ka hadlo groupkaasi waa 3 inay Selel iyo Awdal ka soo baxaan ma jecelahay oo kulay kuwan shalay daa waxaan isleeyahay Selel ka badanayaan oo Selel ma aha niman la dhib yaraysan karo waa ciyaartooy gobolka Awdal la mid oo kale oo waliba inay ka qaalisan yihiin loo maleeyo awal groupka waxaan ka filaynaa kaliya marka aragti ahaantii Sakariya Axmed Yuusufaan waliba sportigana ku shaqale markaad weydiiso waxaan u arkayaa inay yihiin labada group ee quraatay ka soo baxaya waa aragtidayda bidmullaahi kariim hadii la yiraahdo labada kooxoodba waan u hambalyeynaya salaam baan u dirayaa Cabdi Ciise Cabdi oo ku sugan magaalada Boorama gaaraan hotel Oslo halka waxaan ka hambalyeynayaa ciyaartooyga gobolka Awdal ee ka soo hooyay guusha ciyaartii koobaad waxaan u sheegaynaa ciyaartooyga gobolka Awdal inay koobka soo qaadayaan mar labaad iyo mar saddexaadna way badanayaan insha Allah fariino waxaan u direynaa kooxahan la ciyaari doona insha Allah oo noleenay fariintaas oo fariintii koobaad ee u direyno kooxaha laga soo horjeeda waxaan aad u hambalyeynayaa kooxka kooxda wada Muxyidiin Feergeelle oo leeyahay Muxyidiin waan ku soo hambalyeynaa dhammaan Selel waan u hambalyeynaa insha Allah ciyaartan wada leenahayna waxaan leeyahay insha Allah guul bay ku dhamaan doontaa iyo hambalyo waxaan aad u hambalyeynayaa gudoomiyaha gobolka iyo maayirka sida fiican u hogaaminaya dhalinyarada iyo hididiyada la garab taagan heeliyo holkaba la garab taagan waxaan ilaahay hambalyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Jaamac Marre oo ku sugan magaalada Boorama magaalada madaxda gobolka Awdal waxaan u rajaynayaa waxaan bogaadinayaa guushii ay soo hooyeen gobolka Awdal Salatole iyo ciyaar wanaagii ay muujiyeen sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa gobolka Selel in guusha guul la mid ay soo hooyaan kullay ciyaartu si qurux badan ay noogu bilaabatay waxaan kaloon hambalyeynayaa bahda sportiga ee gobolka Awdal sida wanaagsan ay ula soo shaqeeyeen dhalinyarada iyo maamulkuba si isku garab istaageen waxaan ka rajaynaynaa inay guushaas iyo ciyaar wanaagga ay sii wadaan gobolka Awdal hambalyo ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad magacaygu waa Idris Maxamed Xuseen waxaan joogaa gobolka Boorama waxaan guul u rajaynayaa maxay ahaydeen kooxdii gobolka Awdal oo shalay tolo ku badaysay 3 yeebar halkaana daalkiina ka sii wada insha Allah waxaynu doonaynaa ilaa finalka ee koobka qaadna haddii la yiraahdo waxaan kaloo iyagana aan u rajaynayaa saasi la mid ah gobolka Selel oo iyagana inay daalkii sameeyeen gobolka Awdal sidaas la mid iyaguna ay guul u gaaraan hambalyo magacaygu Cabdirasaaq Nuux Cilmi jooga magaalada Boorama waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ciyaartooyda gobolka Awdal oo shalay ciyaar xiiso leh ku soo bandhigtay garoonka Hargeysa waxaan leenahay ciyaartooyda sidaas shalay u ciyaarteen si ka fiican waa inaad u ciyaartiin waa inaad gobolkiina guul soo heysiin halkan waxaan kaloo ugu hambalyeynaynaa tababaraha qiimaha leh iyo qaayaha oo shalay soo bandhigay khibrad cajiiba ta kale waxaan leenahay inanka goolhaya Baashe oo isaguna shalay dhaawac naga soo gaaray insha Allah caafiyo sidoo kale waxaan leenahay gobolka Selel isaguna sida shalay gobolka Awdal u ciyaareen oo kale inay u ciyaaraan magacaygu waa Maxamed Cabdi Diiriye oo ka mid ah dhalinyarta gobolka Awdal
gobolada galbeedka gaar ahaan magaalada Boorama maanta waxa halkan ka hadlayaa guushii shalay moogtahay gobolka Awdal ay ka soo xiriyeen moogtahay maajkii shalay dhaxmaray gobolka Baran iyo gobolka Awdal runtii shalay waxa ahayd ciyaar aad u moogtahay macquul ah soo bandhigeen oo si xirfadeysan ay u maamuleen shalay waxaan la filayahay moogtahay maadaama ay championkii hore wateen xarday ciyaartooyga gobolka Awdal taasina mid ay filaynahay marka aad ayaan rajeynaa moogtahay maadaama yihiin championka hore ay wadaan ciyaar fiican ay shalay soo bandhigeen waxaan rajeynayaa moogtahay koobka xarday gobolka Awdal in mar labaad guusha soo hooyaan ku soo xirayaan xarday gobolka magacaygu waa Muulid Budo Farax kamid ah dhalinyarada gobolka Awdal waxaan maanta jecelahay inaan ka hadlo ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee ka socda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland si guud waan hambalyeeyaa guud ahaan ciyaartooyada gobolada kala duwan ee Soomaaliland u ciyaaraya ilaa hadda si fiican oo qurux badan bay guud ahaan u socotaa waxaan u hambalyeeyaa gobolka Awdal iyo Salal oo runtii gobolada galbeedka shalay gobolka Awdal iyo Baran oo ciyaar ay dhaxmartay waxa gobolka Awdal ay guush ku raacday 3-0 runtii waxa ahayd ciyaar runtii aad u qurux badan oo si fiican runtii oo xirfadaysan ay u soo bandhigeen runtii waan filaynay in ciyaar qurux badan oo wanaagsan ay runtii soo bandhigaan sababtoo waxaan haysanay championkii sanadkii hore baynu haysanay mar labaad gobolada galbeedka waxaan filaynaa in gobolkaas galbeedka runtii guushu mar labaad ay soo raacdo guud ahaan waan hambalyeeyaa ciyaartooyada gobolka Awdal iyo kabtanada ciyaarta wataba sidoo kale waxaan hambalyeeyaa iyadana guul u rajeynayaa gobolka Salal oo runtii iyaguna sanadkan ciyaaraya oo rajeynaya in ciyaar wanaagsan runtii ay muujiyaan guud ahaan waxaan rajeynaynaa in gobolada galbeedka ee Awdal iyo Salal sanadkan ay runtii guushu ay raacdo labada mid si guud waan hambalyeeyaa waxaan leeyahay hawsha halka ka sii wada dadaalka halka ka sii wada ciyaar wanaagga sida maanta shalay baad muujiseen runtii sidaas ku wada guud ahaantiin waan noo hambalyeeyaa waxaan u rajeynayaa guul iyo runtii inaad u soo hoysaan gobolka mar labaad championka magacaygu waa Axmed Nuur Ismaaciil oo kamid ah wax weeyaan dhalinyarta gobolada Awdal iyo Salal waxaan halkan jecelahay inaan guud ahaan hambalyo uga diro wax weeyaan koobka kubadda cagta ee gobolada Soomaaliland gaar ahaan waxaan aad wax weeyaan ugu hambalyeynayaa gobolada Awdal iyo Salal oo wax weeyaan shalay toole maxaan ku raahdaan wareegii koobaad ba ka soo hooyay wax weeyaan guulo laba filaana runtii waxaan idin rajeynaynaa in wax weeyaan aad mar labaad wax weeyaan koobka aad ku soo celisaan gobolka Awdal intaas aan idin ku hambalyeeyaa magacaygu Cabdi Axmed Xasan Xaashi waxaan joogaa magaalada Boorama waxaan halkan dhambaal hambalyo uga dirayaa ciyaartooyda gobolka Awdal oo shalay toole ciyaar wanaag muujiyay waxaan la xulka gobolka Awdal wad wanaagsan tihiin oo uga hambalyeeynaa guushaas gobolka u soo yeeseen hore u sadaan lahay koobkana sanadka insha Allah billahi kariim Awdal baynu keenaynaa